Ugu yaraan 163 Falastiiniyiin ah iyo 6 sarkaal oo booliiska Israa'iil ah ayaa lagu dhaawacay isku dhacyo ka dhacay magaalada Qudus sida ay sheegeen dhakhaatiirta Falastiiniyiinta iyo booliiska Israa'iil. Intooda badan waxay ku dhaawacmeen masjidka Al-Aqsa, halkaasi oo booliiska Israa'iil ay ku ridayeen rasaas cinjir ah iyo bam-gacmeedyo, iyadoo Falastiiniyiintuna ay tuurayeen dhagxaan iyo dhalooyin. Waxaa sii kordhaya qalalaasaha oo markii hore ka dhashay qoysas Falastiiniyiin ah oo laga saaray xaafadda ay degnaayeen oo deris la masaajidka. Dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus waa mid ka mid ah goobaha barakeysan ee diinta Islaamka aad looga ixtiraamo. Laakiin sidoo kale Yuhuudda ayaa iyaguna u aqoonsan goob barakeysan oo ay leedahay macbadka Mount. Rabshadahan ugu dambeeyay ayaa bilowday habeennimadii Jimcaha kadib markii kumanaan qof ay isugu soo baxeen halkaasi si ay u cibaadaystaan Jimcaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Booliiska Israa'iil ayaa sheegay in ay xoog u adeegsadeen soo celinta kala dambeynta. Mid ka mid ah maamulka masaajidka Al-Aqsa ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo isagoo adeegsanayo mikrofoonka masaajidka. Booliisku waa inuu si degdeg ah u joojiyaa bam-gacmeedyada uu ridayo. Dadka cibaadaysanayana gaar ahaan dhalinyarada waa inay isdejiyaan oo ay aamusaan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay maamulka masaajidka oo sidaasi leh. Adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay in 88 ka mid ah Falastiiniyiinta dhaawac ah loo qaaday cisbitaalka, halka booliiskuna ay sheegeen in qaar ka mid ah 6 sarkaal ee dhaawacmay ay u baahan yihiin daaweyn caafimaad. Beesha caalamka ayaa sidoo kale codsatay in xaaladda la dejiyo, taasi oo markii hore ka dhalatay hanjabaadii qoysaska reer Falastiin ee ku nool bariga magaalada Jerusalem ee Sheikh Jarrah looga saaray guryahooda. Afyaheenad u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay aad uga walaacsan tahay xiisadda kacsan. Isuduwaha gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee geedi socodka nabadda bariga dhexe Tor Venezuela ayaa wuxuu ku booriyay dhammaan dhinacyada in ay ixtiraamaan goobaha barakeysan ee ay ku sugan yihiin ee ku yaala magaalada Qudus. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Israa'iil ay joojisay barakicinta isla markaana ay xakamayso adeegsiga awoodda ee ka dhanka ah dibadbaxayaasha. Maxkamadda ugu sarreysa Israa'iil ayaa Isniintii dhageysan doonto dacwadda sharci ee muddada dheer soo socotay. Israa'iil waxay qabsatay bariga Qudus tan iyo dagaalkii 1967 ee bariga dhexe, waxayna doonaysaa in magaalada Qudus loogu aqoonsado inay tahay caasimadeeda. Inkasta oo aan laga aqoonsanayn inta badan caalamka, Falastiiniyiintu waxay ku andaacoonayaan bariga Qudus inay tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda madax bannaan oo rajo laga qabo.